haweeney saddex mataanood mar kaliya ku wada umushay isbitaalka Alxayaad ee magaalada Boorama isla markaasina kamid ah dadka ka soo barakacay deegaanka Seemaal ee degmada Baki ayaa ka codsatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniin inay soo caawiyaan. waxaan ka soo qaxay markii ugu horeysay Seemaal waxaan soo qaxay Boorama Seemaal saddex ciyaalan ku dhalay halkana mid baan ku dhalay afar horaan haystaa iyo saddexdan mataanaha waan la soo dhigtoodo waa la igu qalay maxay hay'adda inaguna waa bilaa camal gurigana ku jirnaa waa kiro waana halka maqsin ee kulul ee wada daloola ee dabayliyo roob midna celinay marka dadweynaha waxaan ka codsanayaa maxay hay'adda muslimka ah inay caawiyaan. wasiir maxamuud oo ah haweeneyda u soo bandhigtay warbaahinta u sheegtay dhibaatada haysata hooyadani. anigu waa wasiir maxamuud saddex mataanood oo ay gabadh masaakiin oo Seemaal ka soo qaxday ay dhashay gabadhaas oo waxantee iyo wax adduun oo haysata ayna jirin Alxayaad maalintii ay lagu qaleynayna kun shilin oo ay bas ku sii raacdo weyday ee ay sii lugaysay imagana ilaahay nimcada saddex mataanood siiyay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay u barakeeyo laakiin dadweynaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah meel walba ay joogaan waxaan ka codsananaa oo ugu horeyso marwada madaxweynaha Aamina Waris iyo intii la macagiiba inay gabadhaas soo caawiyaan dabeetana si maxaan dhahday ama kursiintooda wax loogu taro ama maxaan dhahday hantiba loogu dhiso in gabadha islaameed wixii islaamina xayaaba ay masaakiinta saddex ciyaal dhashay. Qadar Maxamed Xasan Labaqayle TV-ga caalamiga Somali News Boorama.